kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida oo aan ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee dagal kasta. Warbixinadeennan waxaan ku soo gudbin doonaa fadeexada kaga dhacday Israa'iil markii 7 gantaal ay Xamaas ku garaaceen fariisimaha Israa'iil iyada oo gantaalaha Israa'iil ay qaban waayeen hal gantaal oo kamid ah 7 gantaal. garoomada diyaaradaha ee ugu waaweyn Israa'iil ayaa si kooban loo joojiyay. warbixinadii ugu dambeysay ayaad dhegeysan doontaan iyo Turkiga oo ku dhawaaqay dagaalkii ugu adkaa ee ka dhanka ah Israa'iil iyada oo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga loo diray boqortooyada Sacuudiga si arrintani uu u hogaamiyo. warbixinadeennan oo aan inta badan ku gorfayno warbixinada taagan gaar ahaan arrimaha ka taagan Falastiin iyo Israa'iil. Turkiga ayaa hogaaminaya diblomaasiyaddii ugu xooganeyd oo ka dhana Israa'iil abid. gantaalaha Israa'iil ee Iron Dome ay ku guuldaraysteen in ay ka hortagaan gantaalaha iska caabinta ee ka socday Falastiin. guutooyinka Al-Qassam ee garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta ee Xamaas ayaa ku dhawaaqay inay bilaabeen gantaalo ay ku garaaceen xarumaha Israa'iil iyagoo ka jawaabaya dambiyada iyo gardarrada ulakaca ah ee magaalada barakaysan kadib markii uu dhammaaday waqtiga loo qabtay in ay ka gaabsadaan askardooda oo ay kala baxaan masaajidka Aqsa iyo xaafadaha Sheikh Jarrah ayna sii daayaan si dhaqso ah dhammaan maxaabiista ay xidhay Israa'iil. guutooyinka Al-Qassam waxay hadda bilaabeen gantaalo ay ku bartilmaameedsanayaan cadowga ku sugan magaalada Qudus ayuu yidhi afayeenka guutada Abu Ubadah. dhawaaqa gantaalaha ayaa laga maqlay daafaha magaalada Qudus daqiiqado kadib waqtiga markii uu dhammaaday ee Xamaas ay qabatay. ilaha militariga ee Xamaas ayaa xaqiijiyay in hogaankoodu uu awaamiir ku bixiyay taliyaasha iyo qaybaha howlgala inay abaabulaan una diyaar garoobaan dagaal ka dhana Israa'iil. ciidamada Israa'iil ayaa si dhif ah u qirtay in 7 gantaal laga soo tuuray mariga Gaza kuna wajahan Qudus waxayna ku sheegeen bayaan iyadoo jiraan fadeexad xoogan oo ah in 7 gantaal mid ka midana aysan qabanin nidaamka Iron Dome ee Israa'iil. ciidanka Israa'iil ayaa warbixin gooni ah ku sheegay in gantaal idka daankiyada ah oo laga soo tuuray mariga Gaza uu ku wajahan yahay Israa'iil iyadoon la helin faahfaahin dheeri ah. dhinacooda guutada Al-Qudus garabka militariga ee Islaamiyiinta ah waxay sheegeen in 30 duqeymood ay ku duqeeyeen magaalada Sderot waxa ayna sheegteen mas'uuliyadda bartilmaameedyada gantaalaha oo lala beegsaday gawaadhi military oo Israa'iil leedahay. waxayna sheegeen in gantaalahaasi burburiyay gaari gaashaaman oo Israa'iil leedahay. telefishinka Al Jazeera ayaa sheegay in 9 Falastiiniyiin oo ay ku jiraan 3 carruur ay ku dhinteen duqeyn Israa'iil ay uga jawaabaysay gantaalahaasi. ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in la xidhay wadooyin dhowr ah oo muhiim u ah oo ku yaala degsimooyinka u dhow mariga Gaza. Yadoth Ahronoth ayaa sheegay in tallaabadani ay ku imaanayso iyada oo la filayo in gantaalo kale oo lidka taangiyada ah laga soo rido mariga Gaza. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan isniintii waxa uu si gooni ah telefoon ugu diray madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas iyo hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen waaxda war-isgaarsiinta ee madaxtooyada Turkiga. Erdogan wuxuu ka hadlay intii lagu guda jiray labada wicitaan ee telefoonada tallaabooyinka ka dhanka Israa'iil ee Aqsa iyo Falastiin. intii lagu guda jiray wadahadalka telefoonka Erdogan wuxuu tilmaamay weerarada qabsashada Qudus inay yihiin argagixiso cad. Erdogan wuxuu muujiyay cambaarayntiisa adag ee ka dhanka cadaalad darrada ay la kulmayaan Falastiin isagoo xusay in weerarada quursiga ah ay dhaawaceen dareenka aadanaha iyo muslimiinta oo dhan. madaxweynaha Turkiga wuxuu u xaqiijiyay madaxweynaha Falastiiniinta Cabbaas iyo hogaamiyaha Xamaas Haniya in Turkigu sii wadi doono garab istaaga Falastiin uuna ilaalin doono sharafta Qudus iyo Aqsa. Erdogan ayaa sidoo kale qaaday in Turkigu uu dadaal dheer ku bixin doono sidii uu ugu riixi lahaa dunida Islaamka iyo bulshada caalamka inay u dhaqaaqaan sidii loo joojin lahaa weerarada argagixisada ah. waxaa xusid mudan in afyeenka madaxweynaha Turkiga Ibrahim Kalin uu maanta sheegay in Erdogan hogaaminayo olole diblomaasiyadeed oo xoog leh oo lagu cadaadinayo Israa'iil joojinta xadgudubyada ka dhanka ah masjidka barakaysan ee Aqsa iyo dadka xaafadaha Sheikh Jarrah. waxaan si adag u cambaaraynaynaa waxa ka socda Qudus ee Israa'iil. waxa dhacayana waa qayb ka mid ah isku dayada abaabulan ee lagu doonayo in lagu weeraro Falastiin laguna barakiciyo laguna caburiyo ayuu yidhi. sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyay afayeenka madaxweynaha Turkiga isku dayga
lagu daadguraynayo xaafadaha Sheekh Jarrah dadka reer Falastiin mid siyaasadeed oo uusan ahayn in gorgortan marnaba laga geli doono. wuxuu carabka ku adkeeyay Erdogan inuu sameynayo dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo xoogan sida wasiirada arrimaha dibadda Turkiga oo taa ka jawaabaysa ayaa Isniintii wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu waxa uu booqday dalka boqortooyada Sacuudiga. waxaan u joognaa Sacuudi Arabiya inaan kala hadalno xiriirkayaga laba geesoodka ah isla markaana ka wada hadalno arrimaha muhiimka ah ee quseeya gobolkeena gaar ahaan weerarada lagu qaaday masaajidka Aqsa iyo cadaadiska lagu hayo dadka reer Falastiin ayuu yiri. booqashadan oo ah mid hore ee u shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga in Oglo uu booqan doono boqortooyada galka dambe ee Isniintii. madaxtooyada Turkiga ayaa bilowday codsi ku wajahan dunida Islaamka iyo guud ahaan caalamka kadib markii Israa'iil ay weerartay masaajidka Aqsa. madaxa warfaafinta ee madaxtooyada Turkiga ayaa yiri waxaan kala hadlaynaa dunida Islaamka ah waxaana joognaa waqtigii la dhihi lahaa waa ku filan tahay weerarada qursiga iyo xaqdarrada ee Israa'iil. waxaanan qabanaynaa kulan aadanaha oo dhan waqtigan la joogo oo waqtigii la joojin lahaa argagixisada Israa'iil. tani waa mas'uuliyadeena taariikheed iyo tan aadanaha. xitaa haddii aan ka ligeennahay Turkiga waan la dagaalami doonaa cadaalad darrada waana ka hor iman doonaa. afhayeenka madaxweynaha Turkiga Ibrahim Kalin ayaa dhankiisa qoraal uu soo dhigay Twitterka intaa ku daray rabshadaha ay ku dhaqmayaan xoogagga qabsashada Israa'iil ee ka dhanka ah dadka rayidka ee Falastiin waa in si degdeg ah loo joojiyaa. tallaabada Turkiga ayaa qayb ka ah in la dhiirigeliyo banaanbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo guud ahaan Falastiin oo Islaamka ka dhaca taas oo lagu muujinayo dareenka looga soo horjeedo weerarada Israa'iil ay ku qaaday masaajidka Aqsa. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga wuxuu dhaleeceeyay dadka qaar aamusnaantooda weerarada Israa'iil ee masaajidka barakaysan ee Aqsa. kuwa aan ka hadlin xasuuqyadani waa inaysan ka hadli karin geedi socodka nabadda ee bariga dhexe. wuxuu carabka ku adkeeyay Turkigu wuxuu ku sii nagaan doonaa dhinaca qadiyadda Falastiin waxaana sii ahaan doonaa codka walaalaheena Falastiin waana difaaci doonaa xuquuqdeena. madaxtooyada Turkigu waxay bilowday codsi ku wajahan Islaamka oo dhan. booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ugu tagay boqortooyada Sacuudiga Turkiga waxay sheegtay inay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal fikradaha isweydaarsiga ku saabsan arrimaha gobolka inta lagu guda jiro kulankani oo la kulmi doono dhigiisa arrimaha dibadda ee boqortooyada Amir Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud. Turkiga ayaa iclaamiyay in guud ahaan masaajidada Turkiga looga hadlo toddobaadkani arrinta Falastiin. madaxa arrimaha diinta ee dalka Turkiga Professor Ali Erbas waxa uu faray dhammaan masaajidada Turkiga in codkooda ay kor u qaadaan oo ay u duceeyaan masaajidka barakaysan ee Aqsa ee ku yaal magaalada la haysto ee Qudus. Erbas wuxuu shir jaraa'id uu ku sheegay inuu farayo dhammaan masaajidada ku yaala Turkiga oo tiradoodu ka badan tahay 90,000 oo masjid in kor ay u qaadaan codkooda una duceeyaan masaajidka Aqsa isla markaana ay cadeeyaan ahmiyadda iyo halka uu kaga yaalo dadka muslimiinta ah. warbaahinta Turkiga ayaa si weyn waxa ay safka hore uga galeen ka hadalka arrinta qadiyadda Falastiin iyo weerarada Israa'iil. qaar ka mid ah warbaahinta dalka Turkiga ayaa si weyn u weeraray warbaahinta reer galbeedka gaar ahaan kuwa Mareykanka oo ay sheegeen in indhaha ay ka laabanayaan xasuuqa ka jira Falastiin. waxayna sheegeen in qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanku ay ku tilmaameen isku dhacyo sharci ah arrinta xadgudubyada ee ka dhanka Falastiin oo ay muujinayso qursiga lagu hayo muslimiinta Falastiin. dhanka kale Sheikh Al-Azhar Dr. Ahmed Al-Dayib waxa uu salaamay dadka reer Falastiin isagoo ugu yeedhay guul iyo badbaadin iyo ka hortagga argagixisnimada bahalnimada ah ee sahnuuniyadda. qoraal taxana ah oo ku daabacay bartiisa Twitterka oo ku qornaa luqadda Carabiga iyo Ingiriiska ayuu Al-Dayib ku dhaleeceeyay aamusnaanta laga xishoodo ee dunida ee ku wajahan argagixisnimada bahalnimada ah ee sahnuuniyadda soo sheegay ee lagu hayo xuquuqda masaajidka Aqsa iyo walaalaheena dadka Falastiin. wuxuu intaa ku daray Falastiin way ku taagnaan doontaa qadiyadeeda waqti dheer baxa ku qaadatay dadkeenuna waxay ku sii nagaan doonaan dhulkooda sharaftooda iyo karaamadooda iyagoo difaacaya barakada Al-Aqsa oo ah kan ugu horeeyay ee qiblada. Ilaahay haydana garab galo guushiina kuna ilaaliya ilaalinta iyo daryeelka